United of Somali Nations USN waa qaabka ugu fudud oo Soomaali weyn oo dhan la isugu soo celin karo. Farsamadaas si fiican u dhageyso muuqaalkana dad badan gaarsiin. Waa ra'yigayga, okay? Marka ugu horeysa Soomaaliya waxay aqoonsanaysaa Somaliland. Aqoonsiga Somaliland xaggaas la iska dhigaa marka ugu horeysa. Soomaaliya waxay si cad u sheegaysaa in Somaliland ay tahay dal madax bannaan, Soomaaliyana ay tahay dalka ugu horeeya ee Somaliland aqoonsaday. Soomaaliya markay sidaas u aqoonsato, Djibouti sidoo kale si lamid ah way aqoonsan doontaa. Kadibna caalamka koox isku soo raaci doona waa la aqoonsan doonaa. Kadib halkaas meeqa dal oo Soomaaliyeed ku haysanaa Soomaaliya, Somaliland iyo Djibouti. Saddexdaas dal oo Soomaaliyeed oo dad Soomaaliyeed ay leeyihiin waxay samaysanayaan midow United of Somali Nations. Midowga ay ku midaysan yihiin dalalka Soomaalida. haddaba Soomaali saddex kamid ah Soomaaliyeed saddex kamid ah sidaas ku heena halkaas markay marayso dhulalka waa la isku furaa xuduudaha waa la isku furaa wadooyin tariin oo Soomaaliya Somaliland Djibouti isku wada xiraa la sameeyaa ganacsiyada waa la isku furi doonaa يعني dadka aad isku dhaxgalay xitaa ciidan awood badan la sameyn karaa oo midowga dhan uu leeyahay hawsha halkaas markay marayso NFD Soomaalida Kenya waxay ku dhawaaqayaan inay ka goosteen Kenya isla markay ku dhawaaqaan maalmo yar u ololayaan khilkhiliyaan sanad masal laba sano gudahood Soomaaliya way aqoonsanaysaa NFD waxa loo aqoonsanaa dal madax bannaan inay tahay maadaama saddex wadanahay Somaliland sidoo kale way aqoonsanaysaa maadaama iyadana wadan madax bannaan tahay Djibouti sidoo kale way aqoonsanaysaa NFD sidaas waxay ku haysataa saddex wadan oo u aqoonsan inay dal yihiin kadib markaa aqoonsano midowga lagu daraa United of Somali Nations lagu soo daraa NFD sidaas maxaa ku haysanaa Soomaaliyeed afar kamid ah reer Jigjiga iyo dhankaas Soomaalida Itoobiya iyagana waxay ku dhawaaqayaan inay ka goosteen Itoobiya ay yihiin dal madax bannaan sidii si lamid ah haddaan dalka Soomaaliyeed waa wada aqoonsanaynaa waxaana ku soo dareynaa midowga United of Somali Nations sidaas waxa ku haysanaa shantii Soomaali weyn oo hal midow ku midaysan sidaas waxa ku haysanaa Somaliland oo qanacsan dadkii midowga iyo waxyaabahaas raadin jiray oo qanacsan Soomaaliya awood badan oo Itoobiya iyo dalalka lamid ah Afrika oo dhan baabacsan karto iyo waliba Soomaalida iyo heshiis